geesigii jaceylku naafada ka dhigay. wiilkani wuxuu wejigiisii dhalaalayay iyo waxyihii jirkiisaba ku waayay badbaadinta gabadhii uu jeclaa. naftiisa ayuu ku biimeeyey guri gubanaya oo gaadiidka dabdamisku fooda gelin waayeen si uu u badbaadiyo gacalisadiisa. nasiib wanaagga gacalisadiisa oo aan guban ayuu ku guulaystay inuu lafaheeda badbaadiyo. laakiin wiilkan waxa ku qarxay haantii shidaalka cuntada, wuxuuna halkaa ku waayay waxyihii jirkiisa ugu wanaagsanaa. balse cidla ayay uga dhaqaaqday boqoraddii uu nafteeda badbaadiyey, waxayna ku noqotay qof aan axsaan iyo arxantoona lahayn. wiilkan jabaaniiska wuxuu ahaa la jeclow aan qiyaali aqoon, laakiin lagu qiyaamay boholyow caashaq iyo jaceyl aan qiimihiisa la garan. gabadhii uu darteed dabka u galay ayaa ku noqotay qof aan dareen iyo damiir damqadaba lahayn, oo aan waxna ka xasuusan abaalkii iyo eelkii uu darteed u galay. wiilkan oo jaceylku jiha kasta ka tusay jaraqsanaanta iyo joogdheeridda gabadhan ayaa qoomamiyo ciil darteed ilinta la ceshan kari waayey. kolkii ay ka daldoorsatay boqoraddii uu inta qaranjo dumar qaaradda eshiya ku nool ka doortay, kuna tiri wiil naafa ah nolol lama wadaagi karo, anigu ay daba roorayaan kumanaan lixaadkooda qaba. duruufo dhaqaale ma ku daashadeen, mase doonaysaa inaad degdeg lacag u tabcato? haddaba waa muhiim inaad la xiriirto manajer Fawziya oo ka mid ah shirkadda caalamiga ee Forever Living. ka wacweysam nambarka shaashada kaaga muuqda. qisada qaracanka iyo qalbijab kale ee ku dhacday wiilkan ayaa kuu muujinaya inaan la iska indhatiri karin oraahyada oranaya qofnaha jeclaan in ka badan naftaada. fadlan like saar muuqaalkan, haddaad noo sheergaraysana waxaan goyn doonaa malaayiin mayl. maalmihii ugu dambeysay aaladda TikTok waxaa si weyn ugu baahay qisada quruxlowgii qalfoofka noqday kadib markii jaceylka uu qabo gacalisadiisa darteed uu ugu bareeray naftiisana ugu biimeeyey inuu dhex galo dab holcaya oo dadka ka shaqeeya gurmadka degdega ay ka cabsadeen. jaceylkii uu qabay gacalisadiisa ayaana ka indhatirtay holaca iyo belbelka ka soo baxaya gurigii ay ku xanibnayd. la jecelowgan jaceylku madaxiisa majaha u rogay waxaa lagu magacaabaa Kim Yosh, waana nin dhallinyaro ah oo lahaa muuqaalka dadka indhayarta. intaan dabku quruxdiisii foolxumo u bedelin, wuxuu ahaa nin jirkiisa aad u dhisa oo ka daba dhacay ciyaarta basketboolka. muuqaalkiisii bilicda lahaa ee indhaha bilcaanta soo jiidan jiray ayuu ku waayey gabadha uu jecel yahay awgeed, kadib markii gabadhii uu jeclaa gurigooda uu dab ka kacay ayna ku sigatay inay halkaa ku basbeesho. wuxuu u dagaalamay, u dadaalay, iskuna dayey inuu badbaadiyo jaceylkiisa. dhayal loogama soo bixin karin dabka, dhamaca adduunyada in la dhex maraana way adkayd, laakiin badbaadada boqoradiisa wuxuu duldhigay naftiisa oo idil, wuxuuna ku dhaartay inuu dhulka ka hoos mari doono haddii uu gacalisadiisa inuu badbaadiyo ku guuldarraysto. siduu jeclaana waxa u suuro gashay inuu badbaadiyo boqoradiisa. Kim Yosh naftiisu kama uusan badbaadin dabkii uu boqoradiisa ka badbaadinayay, waxaana ku qarxaday haantii shidaalka cuntada ee dhex tiilay jikadooda. halkaana wuxuu ku waayey muuqaalkiisii dabiiciga ahaa. laakiin middaa waxa uga sii daraatay inay cidla uga dhaqaaqday quursi, faan iyo isla weynina ay ula timi gabadhii uu haweenka oo idil ka doortay. waana sababta social mediaha oo idil looga hadalhayo sheekada wiilkan. ma ka mid tahay qurbajoogta Soomaaliyeed? ma u baahan tahay fursad ganacsi oo adduunka meel walba aad uga shaqaysan karto? ma ku nooshahay wadamada Mareykanka, Canada iyo Yurub? ma tahay hooyo raadinaysa inay samayso dhaqaale dheeriya? xamaal ma ku daashay? waxaan kuu haynaa nidaam ganacsi oo guulaystay oo aad ka mid noqon karto. fadlan haddii aad ku nooshahay wadamada aan horey u soo sheegnay shuruudahana aad buuxin karto, nala soo xiriir. waa inaad tahay qof positive ah, lehna go'aan adag. waa inaad ku nooshahay wadamada aan soo sheegnay. waa inaad tahay qof bulshaawi ah kuna wanaagsan dhexgalka dadka. waa inaad diyaar u tahay inaad ku bilowdo ganacsiga dhaqaale aad u kooban. haddaba isqoridda iyo isdiiwaangelintu waa ay socotaa, waxaana diyaar ku ah manajer Fawziya oo in muddo ah hawshan uga faa'iideynaysay walaalo badan oo ku nool waqooyi Ameerika iyo guud ahaan caalamka. haddaba kala xiriir WhatsApp nambarka shaashada kaaga muuqda.